kulankan oo muddo 2 cishaa ka socday magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland ayaa lagu soo gabagabiyay waxaana soo qaban qaabisay komishanka xakamaynta HIV/AIDS waxaana lagaga hadlayay kulanka dib u eegista qorshe sanadeedka sanadka 2022 ee komishanka xakamaynta HIV/AIDS waxaana ka soo qayb galay dhammaan waaxyaha kala duwan ee xafiiska komishanka xakamaynta HIV/AIDS waxa halkaasi ka hadlay agaasimaha komishanka xakamaynta HIV/AIDS Axmed Cabdi Ismaaciil waxaan filayaa insha Allah taala noqdo sanad aynu qorshe ku soo galno oo laba dhinacba cadeynaya mar wuxuu cadeynaya in la wax xisaabtamo waxaan baa idin yaalo idin qorna maxaad ka qabateen taa diyaar waynu noqonaa mid labaadna wayna naqaanaa road mapkeena xageenu soconaa xagee baan tagaynaa waaxda Hiblaayo ama qaybta Hiblaayo ama xafiiska Hiblaayo muxuu qabanayaa sanadkan ee ummadda soo kordhinaya waxaan jecelahay si shalay aynu ballan qaadnay inaan la wadaagno cid kasta oo mas'uuliyadeedan in la wadaagta oo la wadaagi doona insha Allah taala wixii ka agaasihan xagee ku xirana diyaar baan nahay wixii xaqiina markaa ku xidhan fulinta iyo hawlgalka iyo kartida iyo aqoontana xaqiina runtii wax badan ka filaynaa markaa wad ku maasantihiin waxaan rajaynayaa insha Allah taala waxa weeyaan martaamka markaynu marayno sanadka bartankiisa inaan isku nimaadno waxa weeyaan qiimo isku nimaadno oo maxay noo qabsoomay 6 bilood aynu soo shaqaynay maxay naga qabiya maxaa hore inooga sii fulay maxaa markaa dib u yaala markaa inaan isku qiimeeno taas markaa waxay keeni kartaa waxa weeye inaynu gaadhno waajibka naga saaran inaan u adeegno cid leeno diray inaan u adeegno ama shaqada qaranka aynu u hayno dhinaca kale waxa halkaasi hadallo kooban ka soo jeediyay agaasimaha xuduudda shaqaalaha ee komishanka xakamaynta HIV/AIDS iyo mas'uuliyiin kale ka agaasimayaal ahaan ama agaasiga fulinta ahaan waxa naga go'an inaanu muxuu ahaayay gacmo isqabsano shaqada loo soo daadejiyay shaqaaluhu noqdaan dadka waayaga laf dhabarta xafiiska iyaga raasamaalka ku haraya agaasiga fulintu waa temporary sanadka sicid uma idin joogta cusub laakiin dadka raasamaalkii waa inay aqoonteeda yeeshaan kartideeda yeeshaan sida awgeed oo waxaan u ballaadhinay ka soo qaybgalka qorshe sanadeedka 2022 aynu dejinay labadii cisho u dambeeyay waxaan idinka mahad celinayaa sida wanaagsan ee uga soo qayb gasheen iyo inputka aad geliseen dhammaan shaqaalaha waxa kaloon iyaga u mahadnaqayaa tiimkii farsamada iyaguna ka soo shaqeeyay bilihii u dambeeyay iyaguna ka shaqeynayay oo aad ugu mahadnaqayo oo wax fiican geliyay aanan filayo inuu qorshe wanaagsan oo sanadka 2022 aynu ku jirno uu noqdo road map uu komishanka xakamaynta HIV/AIDS ee Solnak uu ku shaqeyn doono waxaan idinka mahad celinayaa labada cisho sida wanaagsan ee aad ugu dhabar adeegteen iyo waxa aad geliseen inuu noqon doono wax komishanku ku shaqeeyo